بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا هبه wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo caawa idinkugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida iyo sheekooyinka kale ee ka cusub qodobadan caawa barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah sidee Israa'iil u lumisay hadafkii siyaasadeed ee xaaladaha rabshadeed ee isku milaqsan oo dhiiqa ku soo jeeday maxaa iska bedelay mowqifyadii Netanyahu iyo xukuumaddiisa maxayse ka yeeli doonaan faylka Lubnaan oo la sheegay in Donald Trump uu doonayo in heshiiskiisa xabad joojintahi uu sii jiro isagoo doonaya inuu iska hor keeno ama isku keeno hoggaanka dhinacyada Lubnaan iyo Israa'iil habayno ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka waxaan kaloon ku eegaynaa caawa madhabba in dagaalka ka socda bariga dhexe uu sabab u noqday koror xawli ah oo ku yimid dalabaadka warshadaha militariga ee Mareykanka maxay yihiin heshiisyada ay shirkadahaasi ka heleen waaxda dagaalka dakhli intee leegse bay ka sameeyeen dalabaadka ay heleen iyo xaaladan dagaal macluumaad ku saabsan kororka iyo heshiisyada ay ka heleen shirkadahan ayaan idin haynaa caawa barnaamijka waxaan kulan kusoo qaadanaynaa safarada halista ah iyo tahriibka caalamka ee badaha ama wadooyinka kale oo sanad kasta ku qorbaxaan kumanaan ruux qaarkooda ayaan la hubin geeridooda halka kuwo kalena ay baddu soo caarido hay-adda socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay ku soo bandhigtay xuruurintii laga sameeyey socdaaladan sanadkii tagay 2025 haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa caawa inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay tahriibka iyo waxa dunidu ay ku xallin doonto dhibaatadan soo noqnoqota xilli kasta dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena caawa ee maxaa cusub soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan aynu gudagalnay barnaamijkeena caawa ee maxaa cusub sheekooyinka aad kaga bogan doontaan sanad kasta waxaa ku go'aamo lagu waayaa wadooyinka tahriibka ee caalamka ilaa kumanaan ruux kuwaasi oo ay ka mid yihiin dad kasoo socdaalay qaaradaha kala duwan ee dunida iyadoo aysan jirin siyaasadaha la isku raacay oo lagu xakameynayo safarkan halista kulansaday qiyaastii 7,900 oo qof ayaa ku dhintay ama lagu waayay wadooyinka tahriibka sanadkii tagay taasi oo tirada guud ee dhimashada iyo dadka la-yahay tan iyo sanadii 2014 ka dhigaysa in ka badan 80,000 oo qof sida ay soo bandhigtay dhowaan hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay hay-adda IOM oo socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka lagu qasbayo safaro halis ah oo sharci darro ah marka wadooyin ammaan ah aan la heli karin waxaana ay ku baaqday in dalalku ay muujiyaan rabitaan siyaasadeed si loo badbaadiyo shakhsiyaad badan oo kusoo jira wadooyinka tahriibka ilaa ku dhawaad 7,900 oo qof ayaa oo dhintay ama lala-yahay ayaa laga diiwaangeliyey wadooyinka tahriibka caalamka sanadkii 2025 ayay tiri hay-addu mashruucan hay-adda ee tahriibayaasha lala-yahay waxaa lagu diiwaangeliyey in ka badan 80,000 oo dhimasho iyo dad lala-yahay isugu jira laga soo bilaabo safaradii tahriib ee 2014 ilaa kii u dambeeyey ee 2025 gudaha warbixinta ayaa lagu yiri inkastoo tiradani ay ka turjumayso oo kaliya heerka ugu hooseeya ee tiradan dhabta ah iyo dadka ay saameeyeen safaradan haddana waxay muujinayaan baahida degdega ah ee loo qabo tallaabo lagu joojinayo dhimashada tahriibayaasha iyo wax ka qabashada baahiyaha adag ee dadka tahriibayaasha ah haysta IOM waxay sheegtay in 7,904 ruux oo ay ku dhinteen ama lagu waayay safarada badda iyadoona la diiwaangeliyey tiradaasi sanadii 2025 taasi oo muujinaysa sii socoshada degdega ah iyo sidoo kale in ay soo ximaanayaan fashilka caalamiga ah ee lagu joojinayo khatartan iyadoo lagama maarmaan ay tahay in xal looga hortegi karo oo la helo socdaaladan sanadkii 2025 waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid gaar la ah heer aan horey loo arag oo dhimista gargaarka iyo xadidaadda xogta ku saabsan wadooyinka khatarta badan ee sharci darrada taasi oo tahriibayaasha ay maraan waxaana ay ka dhigaysaa tahriibayaal badan kuwo lala-yahay ama xogtooda aysan soo muuqan islamarkaana tiradu waxay ka badin kartaa inta hay-addu ay ogaatay kuna soo bandhigtay xog ururinteedii u dambeysay oo dhowaan ay shaacisay dhanka kale saameynta ayaa intaasi ka baahsan iyadoo dad lagu qiyaasay ugu yaraan 340,000 oo xubnood oo qoysas ah ay si toos ah u saameysay musiibadaasi socota ee tahriibayaasha lala-yahay qoysaskani waxay la tacaalayaan saameyn nafsiyadeed mid bulsho sharci iyo dhaqaale oo ka dhalatay qaraabadooda oo lala-yahay taasi waan weli xal loo helin xogtoodana aan la helin ilaa imika
IOM waxa ay sheegtay in shirkii dib-u-eegista tahriibka caalamiga ah ee la qorsheynayo May 2026 isugu yimaadeen uu yahay fursad lagu bedeli karo xaaladda cakiran ee hadda jirta ee qusaysa safarada halista badan ee dadku ku naafayaan. waxaana ay sii raacisay hadalkeeda in rabitaan siyaasadeed oo joogto ah loo baahan yahay si loo badbaadiyo nolosha ku baxaysa wadooyinka tahriibka caalamka loona muujiyo in laga hortegi karo dhibaatada iyo khasaaraha saameeyey qoysas tiro badan oo dunida ku nool. waa hagaaga markana aynu u weecana xagga iyo bariga dhexe sheeko qusaysa islamarkaana shirkadaha Mareykanka ee soo saara agabyada difaaca kulug. xaaladda dagaal ee gobolka bariga dhexe ka jirta ayaa khasaaraha guud marka laga tago waxay dunidu ka dhaxashay xayiraado isku socodka gaadiidka badaha ah iyadoo sicirka ganacsiga gaar ahaan shidaalkana uu sare u kacay. waxaana jira dhanka kale faa'iidooyin ay dad gaar ah ka dhaxleen sida shirkadaha soo saara qalabka military ee Mareykanka kuwaasi oo si aad uga faa'iidaystay marxaladan. shirkadaha difaaca ee Mareykanka ayaa si cad waxay u sheegeen in koror weyn uu ku yimid dalabaadka qalabka military ee rubaca hore ee sanadkan ay heleen iyadoo dagaalka bariga dhexe uu ku qasbay dowlado badan inay dalbadaan qalab cusub oo lagu dagaalgalo ama kuwa difaaca hawada ah. waaxdan waxay la kulantay kobac xoogan sanadkii hore sababo la xiriira dagaalada Ukraine iyo marinka Gaza. faragelinta Ruushka ee hawada Yurub, dowladsida military ee Shiinaha ee agagaarka Taiwan iyo xiisadaha badda cas ka jiray. dalabka dowladaha ee qalabka military ayaa sii kordhaya iyadoo ay sii xoogeysanayaan khilaafaadka juqraafiyeed ee dunida ka jira. dalalka hore ee dagaalka ugu jiray waxa ay si degdeg ah ugu baahan yihiin inay kordhiyaan qarashaadka si ay u buuxiyaan kaydadkooda ama ay u dayactiraan qalabka u baahan dib u habeynta. shirkadaha difaaca Mareykanka sida RTX Corporation, Northrop Grumman iyo GE Aerospace ayaa sheegay in dalabaadkooda ay soo gaaray ay kordheen ubici hore ee sanadkan. maamulaha RTX Chris Cornell ayaa u sheegay warsidaha The Wall Street Journal in shirkadu ay ka shaqeynayso ama ay kala shaqeynayso waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagonka sidii loo dardargelin lahaa soo saarista rasaasta isagoo muujiyay rajada ah in xal waara laga gaaro colaadda bariga dhexe. mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa dhowaan waxay shaaciyeen heshiisyo cusub oo lagu kordhinayo soo saarista gantaalada Tomahawk, Patriot iyo sidoo kale Dream T iyo hub noocyo kale leh. horena qaybta Raytheon ee shirkadda RTX ayaa ku dhawaaqday 5 heshiis oo taariikhi ah kuwaasi oo la gashay waaxda dagaalka Mareykanka kuwaasi oo maamulaha shirkadu ku tilmaamay kuwo muhiim u ah amniga qaranka ee Mareykanka. shirkaduna waxay ku maalgelisay qiyaastii 900 oo milyan si ay u bilaariso awoodeeda wax soo saarka. xaaladda hadda jirta waxay si cad u muujinaysaa baahida loo qabo rasaas, nidaamyada difaaca hawada isku dhafan iyo gantaalo iyo sidoo kale awoodo horumarsan oo looga hortagi karo khataraha sii kordhaya ee dunida ayuu yidhi. waxaana uu sii raaciyey inay arkeen dalabaad aad u xoogan oo ka yimid gudaha iyo caalamkaba iyadoo shirkadu ay kor u qaaday saadaasheeda dhaqaale ee sanadka oo dhan. dakhliga iyo sidoo kale filashooyinka la filayo. shirkadda GE Aerospace ayaa waxay rubicii hore ee sanadkan ku tilmaantay mid dalabaadku ay xooganayeen iyadoo dakhliga uu kordhay 25% taasi oo maamulaha shirkadda Larry Cobb uu ku sababeeyay xaaladda xasaasiga ah ee dunida meelo kala duwan ka jirta gaar ahaan 40 bilood ee uu siyaaday dakhligooda. Cobb waxa uu sheegay in shirkadu ay filayso in dagaalka bariga dhexe saameyntiisa ay sii socon doonto inta lagu jiro sanadkan, isagoo intaasi ku daray in barnaamijyada difaaca shirkadu ay si degdeg ah u fulinayaan dalabaadka si loo daboolo baahiyaha military ee ugu sarreeya ee Mareykanka iyo xulafadiisa haysta. si kastaba shirkada oo soo saarta motorada diyaaradaha Boeing iyo Airbus waxa sidoo kale ay la kulantay saameyn ka dhalatay dagaalka bariga dhexe iyadoo hoos u dhaca safarka bariga dhexe uu noqday mid saameeyay shaqadeeda dayactirka ee agabka ay soo saarto ee diyaaradahaasi. waa hagaag daawadayaal waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan sida Israa'iil ay u lumisay hadafkeedii siyaasadeed iyo waxa ay ka yeeli doonto faylka Lubnaan oo Trump la sheegay inuu doonayo in heshiiska xabad joojinta ee laga gaaray uu ahaado mid sii jira walow ciidamada Israa'iil ay ku kacayaan falal ay ku jebinayaan heshiiskaasi. waan eegi doonaa warbixintaasi balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan weli waxaad daawanaysaan barnaamijka maxaa cusub
oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadan waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. idinkoo warar degdeg ah, macluumaadyo kale iyo faallooyin ka heli kara oo ka akhrisan kara barta aynu internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirno HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. markan aynu u talaabno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka. Israa'iil ayaa u muuqata mid lumisay hadafkeedii siyaasadeed iyadoo xal u la rabshadaha ay dhinac kasta oo gobolka bariga dhexe ah ay ka abuurtay. waxa kale oo su'aalo ay ka taagan yihiin sida ay u maareyn doonto arrimaha ku saabsan koonfurta Lubnaan oo dhul ay ka haysato, iyadoo Donald Trump uu doonayo inay soo afjarto rabshadaha halkaasi ay ka wado islamarkaana ay ilaaliso heshiiska xabad joojinta walow taa mid ka duwan ay ciidamadeedu ku dhaqaaqayaan. maqaal falanqeyn ahaa oo qoraaga Mareykanka ah ee Thomas Friedman uu ku qoray wargeyska The New York Times ayaa si daliil waxa uu eegayaa jihada ay u socoto siyaasadda Israa'iil oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo rabshad ooday lagu xanto inuu yahay, isagoo ku doodaya in Israa'iil ay lumisay jidkeedii dhinaca istiraatiijiyadda iyo anshaxa, islamarkaana uu soo jeedinayaa door muhiim ah oo Trump uu ku yeelan karo badbaadinta faylka Lubnaan. qoraalkiisa toddobaadlaha ahaa ee warsidaha ee Friedman waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay iyadoo uu hogaaminayo garabka midig ee xag jirka ah ay qaadatay istiraatiijiyad aan habboonayn oo wax burburisa iyadoo aan wax dhisin, wax mustaqbal siyaasadeedna aan abuureyn, taasi oo halis gelinaysa mustaqbalkeeda iyo xiriiradeeda caalamiga ah oo ay ku jirto xiriirka gaarka ah ay la leedahay Mareykanka. Friedman waxa uu tusaale u soo qaatay laba sawir oo uu arkay inay muujinayaan isbeddelka Israa'iil. midka koowaad waa askari Israa'iili ah oo ku burburinaya dube taallo lagu sheegay inay tahay mid u barakaysan masiixiyiinta dunida oo dhan, taasi oo taalay tuulada Maroni ee ku taala koonfurta waddanka Lubnaan. waxaana uu qoraaga u arkaa midaasi inay tahay ama inaysan ahayn fal keliya balse ay ka turjumayso dhibaato akhlaaqeed oo ka dhalatay hadallada nacaybka ah ee warbaahintu ay baahinayso siyaasadaha xukuumadda Netanyahu ay ku dhaqmayso. midka labaad waa wasiiro midigta fog ah oo Israa'iili ah oo u dabaaldegaya dib u dhiska deegaankiisa nool ee waqooyiga daanta galbeed si loo joojiyo isku xirnaanta dhul ee mustaqbalka dowlad Falastiiniya, taasi oo Friedman uu ku tilmaamay mid iska indhatiraysa ballanqaadkii Trump uu sameeyey. labadan sawirba waxay soo koobayaan habka xukuumadda Netanyahu ee adeegsiga xoog xad-dhaaf ah ay ugu dhaqmaysa iyadoo aan lahayn aragti siyaasadeed oo fog waxna dhisaysa. Friedman waxa uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee istiraatiijiyadda Israa'iil ay tahay maqnaanshiyaha aragti siyaasadeed oo xoogan, gaar ahaan xalka laba dowladood ah oo mid muhiim ah. waxaana uu aaminsan yahay in Israa'iil aysan ku gaari karin guulo waara Gaza, Lubnaan, Suuriya ama xiriirada gobolka iyadoo aan si dhab ah u raadin jiritaanka dowlad Falastiini ah oo dhisan. tani keliya ayaa sida uu sheegay godoomin karta Iiraan islamarkaana furi karta albaabka caadiyeynta ballaaran ee xiriirka Israa'iil iyo dalalka Islaamka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya oo diidan inay ku biirto heshiiska caadiyeynaya xiriirka Israa'iil la leeyahay. inkastoo uu qirayo ninkan adkaanta arrintan, Friedman waxa uu dhaliilay daciifnimada hoggaanka Falastiin, isagoo sidoo kale sheegay in Netanyahu uu daciifiyey wax kasta oo dhexdhexaad ah. waxaana uu ka digay in Mareykan badan oo Israa'iil ay u arkaan ilmo la koolkooyey oo ay ka daaleen sabaalahaasi. waxaana uu sheegay in khabiirkan in haddii Tel Aviv ay sii wado habkan ay ugu sii socoto dhanka nidaam midabta koor sameeya ay lumin doonto taageerada saa'idka ah ee xulafadeeda ay ka hesho, gaar ahaan Mareykanka oo si indhala u taageera. Friedman ayaa soo jeediyey waxa uu ku tilmaamay ikhtiyaarka saddexaad oo ka kooban ka bixitaan buuxa oo Israa'iil ay ku samayso koonfurta Lubnaan, ciidamo hubeysan oo ka socda gaashaanbuurta NATO oo la geeyo halkaasi si ay u maamulaan aagga iyagoo la shaqeynaya ciidanka dowladda Lubnaan iyo xoojinta xiriirka hoggaanka Lubnaan. ninkan ayaa ammaanay madaxda ugu sarreysa ee Lubnaan, gaar ahaana madaxweyne Joseph Aoun iyo ra-iisul wasaarihiisa Nawaf Salam. waxaana uu sheegay in xalkan inkastoo uusan dhammaystirnayn uu ka macquulsan yahay sii socoshada rabshadaha ama helista dagaal sokeeye. Friedman waxa uu sidoo kale tilmaamay in tani ay cadaadis saari karto Xisbullah, isagoo ka digay in haddii ay diido ay ka dhex noqon karto bulshada Lubnaan gacan qarsoon oo Iiraan u adeegta. ugu dambeyn, qoraalka maqaalkani waxa uu ku baaqay dib u fikir ballaaran oo ku saabsan amniga iyo siyaasadaha gobolka, isagoo sheegay in siyaasadaha hadda jira
ay keeni doonaan go'doon dheeraad ah oo Israa'iil ragaadiya xasilooni daro iyo rabshado kala dhexeeya dalalka dariskeeda ah ee gobolka. waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka maxaa cusub oo aynu ka eegaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee dunida ka cusba si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadkeenu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore uga xirnayn hadda kusoo biir tan iyo intoonu dib ugu kulmi doono barnaamij midka lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.